صلاة إني اهتمام سيان واجب إلهي صاري واير إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صلاة إني وقت قاعدة كو إلاليان مركي اللي قال الصلاة وضيعة إيا قناعسي وحي هاي أنت كسوة تغان مساجد أي قلان قضب كاللبات دمرك وحالو شيء سي خاصة إن حجابك إلى التزامان حجابك هو إلهي سبحانه وتعالى أمر دمرك كواجي مسلمين تا إلهي كواجبيي أمر كازمرك هو إلا فوليو ومضى إن بدنا كمدنا وفوليين أفراد أما ضد شخصيات يريرا ديدي أرنتا كدغا أضيقي أيغانا وحيلا كل مدونان وحي كسبان يركضون إن شاء الله وإن دمرك حجابتان أمرك على وإيه فوليان سبحانه وتعالى waaliga walaayada xaragada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in inta badan dadka ay yihiin kuwa ku tunta xuquuqda xayawaanaadka isla markaana loo baahan yahay in la ilaaliyo xuquuqda xayawaanaadka amarada ay soo saareen ayaa waxa uu ku sheegay cidii u hogaansami wayso inay tallaabooyin ka qaadi doonaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ummadiisa u sheegay xataa in la ilaaliyo xuquuqul xayawaanaad xuquuqul xayawaan xataa in la ilaaliyo hadduu dameerka yahay hadduu gaadiidka ku socota nooc kasta uu yahay hadduu awr yahay hadduu kuwa mataqaan kaloo la isticmaalo uu yahay dibiga nooc kasta uu yahay xayawaankaas waa in la ilaaliyo la ricaayadeeyo caafimaadkiisa qofkii lagu arkana arrintaas waxaa laga qaadi doonaa tallaabo adaga laga qaadi doonaa insha Allah sidoo kale waxaa lala xisaabtami doonaa dadka dameeraha ku raro tan aysan qaadi karin tanka ayna qaadi karaynin dadka ma taqaana dameeraha u isticmaalo ayagana waa la xisaabtami doonaa insha Allah si kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horreyso ama racaynkan oo kale ay ka soo baxaan xaragada mujaahidiinta al-shabaab ee ku aadan dhinaca dhaqanka iyo weliba waqtiyada salaada in albaabada loo laabo goobaha ganacsiga iyadoo meelo badan ay gacanta ku hayaan xaragada mujaahidiinta al-shabaabna ka dhaqan galay amarada inta badan ay ku soo rogaan maxamed cismaan makraan telefishinka universal muqdisho dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday bilaabista howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka xeebaha dalka Soomaaliya iyadoona digniin culus loo jeediyay kalluumaysatada ka jalaabata xeebaha kala duwan ee dalka faafahinta warkaasi waxaa eegaya wariyahayaga Xuseen Nurgeysay kadib shirkaasi jiraad uu ku qabtay qaybo kamid ah magaalada Muqdisho ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya ahna wasiirka kalluumaysiga kheyraadka badda Professor Ibrahim Xaaji Aadan Ebi ayaa sheegay in ay xukuumadda ku-meel gaarku ay haatan bilowday howlo lagu sugayo ammaanka biyaha badda qaybo kamid ah koonfurta Soomaaliya gaar ahaan inta u dhaxaysa Ceel Macaan iyo dekedda Muqdisho isagoo sidoo kalena tilmaamay in ciidamada AMISOMna loo xisaaray inta u dhaxaysa biyaha badda ee u dhaxaysa dekedda iyo garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde Airport isagoo sidoo kale digniin u jeediyay kalluumaysatada ama doolayaasha ka jilaabta xeebahaasi doomankoodu in ay ka ilaaliyaan ama ay ka dhowraan in ay qaataan wax hub ah su'aasha ku saabsan howlgalka la dagaalanka burcadbadeedka ee shalay amarka laga bixiyay kadib markii ay dhacday in kabtan marka badeeco wado caadi oo nin wanaagsan oo aad u wanaagsan oo muslim oo runtii u dhashay dalka Suuriya lagu xabadeeyay markabka dushiisa uu kuna nafwaayay waxaa laga bixiyay shalay amar dowladda federaalka meel gaarka waxaana amar la siiyay taliyaha ciidanka badda saa ula socotaan qalabkan ilaalada ciidanka badda ee soo gaaray wuxuu siinayaa awood ciidanka ilaalada badda in inta bal hadda ay gaari karaan oo dhowrkaas doomood ay ku howlgeli karaan min jaziira ilaa iyo dekedda qolada AMISOM baa ilaalinaysa dekedda ilaa iyo Ceel Macaanna inay ayaga ilaaliyaan bashal awood loo siiyey waxaa awood loo siiyo kale doontay istaag yiraahdaan ay baaraan oo laga dhaxelo hub in lala wareego hubkaas haddii doonta dhexdeeda xabad ka soo ridaana la burburiyo doonta haddii la badbaadin karo dadka la badbaadiyo la soo qabto maxkamadda la saaro waxaa looga digaya kalluumaysatada Soomaaliyeed oo haddana aan u sheegay in ay haddii la joojiyo ciidanka ilaalada badda iyo ciidan kale oo shalay loo xilsaaray ciidanka dhulka oo kaalmeynaya ciidanka ilaalada badda oo dhulka naftooda ka dagaalamaya ay joogsan yiraahdaan doontii ay shaki ka gasho joogsan weyso waxaa la amray in la xabadeeyo waa ku cilin in la xabadeeyo hase yeeshee wasiirka kalluumaysiga ee kheyraadka badda ayaa sidoo kale waxa uu kulan gaar ah la qaatay qaar ka mid ah
kalluumaysatada ka jilaabata xeebahaasi oo iyaguna cabasho ka muujiyey boob ay u geystaan ciidamada dowladda iyo kuwa amisom qaar ka mid ah kalluumaysatada ayaa waxa ay tilmaameen haddaan kuu sheego si dowladda dhexe u dhashay ilaa maanta waxna loo qabtay gobolka banaadir ma jirto oo kalluumaysatada hal jiribna lama siin hal fiilana lama siin waataa nadiifo noola enjooyaa soo qaadanayo histeebis meeshuu ku badaya dadkii masaakiinta ahaa oo kalluumaysatada ahaa hal fiila ma la siinaayo hal xarig ma la siinaayo hal neyd ma la siinaayo shabaab ma la siinaayo dhibkaasaa lagu jira maanta fursad bay noota inaanu ku helo oo aad laga gaarsiisay madaxda sare iyo adigaba saa waxaa loo qabanaya idinkeyda taas waa mid ra-iisul wasaare tan kaleeto waxaa jirto dadkii aqoonta u lahaa oo kaadiriinta kalluumaysigu fadhiba waa arrimaha aad ogtaadaan ayay ku baxeen wax yar baa waxaa loo baahan dadkii aqoon-yahanadaas iyo nadiif oo kaleeto anagoo kale in la soo ururiyo oo aan dadka dambe oo cusub aanu ka reebo si kastoo yahataba hadalkan ka soo jiray xukuumadda kumeel gaarka ee Soomaaliya oo ku aadan inay howlgallo ammaanka biyaha ku sugayaan ayaa waxa uu imaanaya xilli toddobaadyadii la soo dhaafay koox burcadbadeed Soomaali ah ay ku weerareen markab gadhurna ganacsato Soomaali oo xilligaasi ku sugnaa dekedda weyn ee magaalada Muqdisho meel aan ka fogeyn halkaas oo la tilmaamay inuu ku geeriyooday kabtankii markabkaasi oo u rarnaa ganacsato Soomaaliya ayaa markii dambe waxaa soo badbaadiyey ciidamo ka tirsan booliska iyo kuwa amisom waxayna imaanayaan arrimahan oo dhan xilli ay dowladda kumeel gaarka Soomaaliya ay haatan wado qorshooyin ay wax ugu qabanayso ammaanka guud ee badaha iyo dalka Soomaaliya Xuseen Nuur Geesay telefishinka Universal Muqdisho madaxweynaha Soomaaliland Daahir Riyaale Kaahin iyo gudoomiyaasha labada xisbi mucaarid gudoomiyaha kulmiye Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo iyo gudoomiyaha xisbiga u ciidan Jineef Faysal Cali Waraabe ayaa maanta kulan ku yeeshay gaar ah qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa waxa fadhigoodaasi ay kaga wada hadleen sidii loo sii ambaqaadi lahaa fulinta iyo ku dhaqanka 6 qodob ee dhawaantan ay qalinka ku duugeen saddexda xisbi kuwaasi oo ujeedadoodu ahayd in la soo afjaro khilaafkii siyaasadeed ee muddo ka taagnaa Soomaaliland qoraal shirkaasi oo albaabada u xidhnaayeen markii soo gabagaboobay laga soo saaray madaxtooyada Soomaaliland ayaa lagu sheegay in kulankaasi saddex geesoodka ahaa ee madaxda xisbi ay madaxtooyada ku yeesheen ay ku heshiiyeen in dardar geliyo heshiisyadii ay dhawaanta kala saxeexdeen si toos ahna wada shaqayn iyo wada tashi ay had iyo goor u yeeshaan si Soomaaliland ay uga qabsoonto doorasho xor iyo xalaala shirkaasi oo qaatay baa lagu sheegay qoraalkan 40 daqiiqadood waxa ay ku heshiiyeen madaxweynaha Soomaaliland iyo gudoomiyaasha labada xisbi mucaarid in had iyo goor ay wada tashi joogto ay yeeshaan waxaana shirkaasi uu ku dhamaaday isafgarad iyo jawi wanaagsan qoraalkan ayaa waxa ku saxeexan afayeenka madaxtooyada Soomaaliland Saciid Cadaani Moge kulankan albaabada u xidhan yihiin qasriga madaxtooyada Soomaaliland ku dhaxmaray madaxweynaha Soomaaliland Daahir Riyaale Kaahin iyo gudoomiyaha xisbiga u ciidan Jineef Faysal Cali Waraabe iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horeeyay ee si gaar ah ay u yeeshaan tan iyo markii ay saxeexeen heshiiskii lagu soo afjaray khilaafaadkii siyaasadeed ee Soomaaliland hadheeyay kaasi oo arbacadii toddobaadkii hore ay qalinka ku duugeen saddexdooduba waxaana shirkan la filayaa inuu ka soo baxo qoraal rasmi ah oo ay ku sii dhaweynayaan xaaladda isla markaana loogu sii dhawaanayo gudagalka hawshii 6 qodob ka koobnayd ee saddexda xisbi ay ku heshiiyeen Khadar Maxamed Cakulle Universal TV qasriga isla wararka Soomaaliland ayaan weli ku jirnay gudoomiyihii guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland iyo laba xubnood oo kale ayaa si rasmi ah isku casilay waa kan wariyaha mar kale Khadar Maxamed Cakulle oo warkaasi faahfaahiya gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Jaamac Maxamuud Cumar Jaamac Sweden iyo saddex xubnood oo kale ayaa maanta waxa ay si rasmi ah iskaga casileen xilkii gudinimo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Jaamac Maxamuud Cumar iyo saddexda xubnood ee kale oo kala ah Maxamed Ismaaciil Kabaweyne Maxamed Yuusuf iyo Xasan Cumar Hori waxa ay kala ahaayeen saddex xubnood oo uu madaxweynaha Soomaaliland u soo xulay guddiga doorashooyinka iyo hal xubin oo ay golaha guurtida Soomaaliland u soo xuleen guddiga doorashooyinka waxaan wali isagu iscasilin gudoomiyaha ku-xigeenkii guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cali Maxamed Cali Bikoro oo ahaa xubintii xisbiga kulmiye ay u soo xuleen guddiga doorashooyinka Soomaaliland gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland ee iscasilay Jaamac Sweden iyo Maxamed Kabaweyne
ayaa labadooduba sharxay iscasilaadooda iyadoo Maxamed Kabaweyne uu marka hore ka hadlay waqtigii uu gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland ahaa diiwaangelintii ka qabsoontay Somaliland aan u gudatay iyaga oo dad xoolo raacataa iyaga oo dad yani aan deganayna iyagoo dad shaqaale rasmi aan ahayn oo wareegaya inay isu xil saareen oo isu xilqaameen inay doorasho wanaagsan oo ay ku gaari karaan doorasho xor iyo xalaal registration wanaagsan oo ay xor iyo xalaal ku gaari karaan inuu dalka ka dhacay laakiin si la abuse gareeyay cidii abuse garaysay waxay ahayd saddexda xisbi ayay ahayd saddexda xisbi iyaga uun baa jeclaani waliba inay wax u bataan iyaga caruur iyo weyn iyo mid yar iyo mid